بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad u xamaasad badan, mowduuc aad muhiim u ah, mowduuc shakhsi walba gudigiisa ku jira. maanta waxaan ka hadlaynaa riyooyinkeena. riyada ma ahan waxaad aragto markaad hurdo, ee waa waxaan ku oggolaanayn inaad seexato ilaa iska gaarto. nolosha qof waliba waxay ku salaysan tahay riyooyin, laakiin riyooyinkaasi dadka oo dhan ma wada gaaraan. waxaa gaara dad yar oo keliya. waxaa jira farqi u dhexeeya dadka riyooyinkooda gaaray iyo kuwa aan riyooyinkooda gaarin. farqigaasina waa ficilka. marka haddii aad rabto inaad gaarto riyooyinkaaga oo aad noqoto shakhsi guulayste ah, waxaad raacdaa tallaabooyinkan soo socda. kow, faham riyadaada. waa maxay riyadaada? si cad u qeex waxaad doonayso inaad gaarto. haddii aad rabto inaad noqoto ganacsade guulayste ah, haddii aad rabto inaad noqoto dhakhtar ku takhasusay wadnaha, haddii aad rabto inaad noqoto shakhsi injineer ah, waxa markaas aad haminayso inaad gaarto oo ay riyadaadu tahay si wanaagsan u fahan. qor riyadaada oo si joogto ah maalin walba u akhri si ay kuugu noqoto dhiirigelin. labo, inaad riyooto keliya kuguma filna. waxaad u baahan tahay inaad degsato qorshe, inaad la imaado dadaal, iyo inaad samayso ficil. sidaas darteed u kala qayb riyooyinkaaga riyooyin yaryar si ay gaaristooda kugu fududaato. tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad bilowdo ganacsi, waxaa lama huraan inaad ahdaaftaada sidaan u qaybiso. kow, inaad la timaado fikrad cusub. labo, inaad barato suuqaad rabto inaad maalgashato. saddex, inaad keyd aad samaysato. afar, haddii aadan keyd haysan, inaad hayso shirkad ama shakhsi kuu maalgeliya badeecadaad rabto. shan, inaad caqabadaha aadan ka cabsan ee aad waajahdo. lix, inaad dadaal joogto aad samayso. intaas waxay ahaayeen qaybaha aad u qaybinayso ahdaaftaada markaad rabto inaad gaarto. saddex, ku dadaal shaqo joogto ah. gaarista riyadaada waxay u baahan tahay shaqo adag iyo dulqaad, sababtoo ah habeen iyo maalin riyadaada kuma xaqiijin karto. shaqay maalin walba. guusha waxay ku timaadaa dadaal joogto ah. afar, ka faa'iidayso guuldarooyinkaaga. guuldarooyinkaaga ma ahan dhammaadka noloshaada, ee waa fursad cusub oo aad wax ka baran karto. markaad wajahdo caqabado ama aad fashilanto, dib u eeg waxaad ku fashilantay oo casharo ka baro. guusha waxaa lagu gaaraa tijaabooyin badan oo aruuray, kadibna isku beddeli khibrad. khibraddaasna waxay ku horseedaysaa waddadii aad guusha ku gaari lahayd. shan, naftaada ku kalsoonow. qodobkan waa qodobka ugu muhiimsan qodobada aan sheegi doonno oo dhan. kalsoonida naftaada waa furaha guusha. xitaa haddii ay dadka kale kugu dhahaan guul ma gaari kartid, adiga hanila jebin. naftaada ku kalsoonow. waxaadna naftaada u sheegtaa haddii aad dadaal badan la timaado, wax walba inay suurtagal yihiin. guusha aad rabtana inaad gaari karto. lix, raadi taageero. la saaxiib dad adiga ka aqoon badan, ka xirfad badan, aad wax ka faa'idi karto. dad aad ka helayso dhiirigelin joogto ah. mar weliba taarget ka dhigta horumarka iyo guusha si aad u noqoto iyaga oo kale, kadibna aad u gaarto guusha aad tiigsanayso. toddobo, ha joojin horumarinta naftaada. si aad u guulaysato had iyo jeer ka shaqay horumarinta xirfadahaaga, horumarinta aqoontaada. akhri bugaagta, baro farsamooyin cusub, raadi aqoon kuu horseedi karta inaad gaarto riyooyinkaada. toddobadan tallaabo haddii aad ku celceliso si joogtaan aad u samayso, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad gaari doonto guusha aad tiigsanayso. dhammaanteena waxaan leenahay riyooyin. riyo walboo la arkana waa la xaqiijin karaa haddii shakhsiga ay ka go'an tahay. asalaamu calaykum.